macnaha waxaan ka soo qabanayaa anigu hadda maanta inaan Ethiopian ahay ya Somaliland waxaan u sheegaa inaan jeclahay ya inaan kala shaqaynayo aqoonsigeeda ya aniguna aan aqoonsan doono waliba ka mid noqon doono kuwa aqoonsanayo ya okay waayo aniga Ethiopian ahay daran iigu jirtaa inay Somaliland dawlad noqoto ninka la yiraahdo siilaan yaxtamaal inuu wareysanayo af Ingiriis aan ku wareysanayo markaas waxaan ma kula tahay maalmaha kamid ah Soomaaliya iyo Somaliland inta la soo noqdo in la wada joogi doono ya markaas uu mikrofoonka afka ka qabtay markaas uu dami marka hore markaas aan dami ilaahu ku naxariiso wuxuu leeyahay السلام عليكم أخيارتا شرفتا لكل انتي وناكسن كسو دوادا هنو لاتواني قولوا ويان لحسين عبدي برنامج كان وحا مركلان كسو تبنينا مقالة مقدشو عاصمة ودنكا وحانا هالكان يقول السوغان وريها وين سوماليات حسن بريسي oo loo yaqaano xasan bariise laakiin magaciisa weyn uu yahay Cusmaan Xasan Wehliye Bariise waxaan rabaa markaa barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay maadaama xasan bariise lagu yaqaano inuu yahay wariye ugu badnaa ee dagaalada sukeeye ka hadlaya muddo dheer khibradna u leh dhibaatooyinka iyo aafada ay reebaan dagaalada sukeeye ayaan maanta barnaamijkan ugu casumay maadaama weli Soomaaliya aysan ka dhamaanin marka laga hadlo dagaal sukeeye oo aan arkayno dagaaladii Soomaaliya ee koonfurta ku badnaa inay waqooyiga ku sii fidayaan oo waayadii dambe ka hadlayno dhulkii ugu nabadda badnaa Soomaaliya in dagaal ay ka jiraan oo ugu dambeysay deegaanada la isku haysto markay timaado colaadaha ka jira Sanaag colaadaha ka jira Sool iyo sidoo kale colaadaha hadda ka soo cusboonaanaya gobolada Awdal oo ay ka mid tahay hadda marka laga hadlo waxyaabihii ugu dambeeyay isla markaana dareemayso in sasaan colaadada xoog leh halkaasi ay ka jirto xasan bariise ku soo dhaw barnaamijka aadan ugu faraxsanahay runtii kulankaaga aad iyo aad u mahadsantahay ayaan leh sababta barnaamijkan aan kugu casumo waxay tahay taariikhda waxaad ahayd wariyii ugu dheeraa marka laga hadlo ee goobjoog ahaa ee ka hadlaya dagaal sukeeye arkaya xanuunkiisa arkaya barakaciisa arkaya dhibaatadiisa marka macnaha dagaal sukeeye marka laga hadlayo qof shay baar saari kara tahay oo maanta ka hadli kara in Soomaaliya wali 35 sano kadib dad Soomaaliyeed ay ku murmayaan dhul isku dilayaan qabiil ayaa maanta wali socota bal arrinta maxay kula tahay ayaan la aad iyo aad u mahadsan tahay waa runta waa nasiib darro ha ahaatee waa dhacdo joogto oo macnaha annaga aynan hadda wali xal u helin hadda ka hor waxaan xasuustaa nin Ingiriis ah ayaa wuxuu rabay inuu cali mahdi u noqdo la taliye xagga siyaasadda marka asaguna waa Ingiriis oo political science oo barto PhD oo la taliye marar badan u soo noqday dawlado badan oo dibadaha marka diyaarado kaliis wataa waa pilot waana political scientist markaas wuxuu yiri ana markaas waxaan leeyahay journal la dhihi jiray Shabelle Press oo ahaaba journalkii ugu horeeyay oo af Soomaali ku hadla oo af Soomaali ka soo baxay oo madax banaan burburkii kadib markii dawladii baxdaba dhowr bariyaan ka dambeeyay 19 maalmood oo ka dambeeyay kadibna suuq u biilay ninkaas wuxuu ugu yiri nin waxaan rabaa inaad xayeysiin samayso oo si uu cali mahdi markaas cali mahdi waa madaxweynaha ku meel gaarka halleey marka wuxuu yiri Allahu naxariistay wuxuu yiri in xayeysiin samaysan ka rabaan si oo qaato oo la tali iga dhigto markaas waxaan iri okay anigana waxaan ka helaa markaas wuxuu yiri adiga hadii aad xayeysiintaas samayso aniga waxaad iga heli kartaa ku sheega haye markaas dagaal ka socdo gobolada dhexe iyo meelahaas dhinaca dagaal ka socdaan marka wixii dagaaladaas diyaaradan wataa camera hoosta ugu xiran tahay ama masawiradaasna ku soo qaadi karaa waan kaaga soo warrami karaa marka shaqada ka caawin karaa xoogan ku keeni karaa marka waxaan ku soo kordhi karaa adna xayeysiintaas ay sameeyeen anigana dagaaladaas kaaga soo warrama marxaba heshiiskan galnay marka dagaaladii oo aaday ana xayeysiintii aan sameeyaa markaas waxaan irbal cabir balniyo dadka gobolada dhexe markaas dagaal ka socda markaas waxaan meesha la isku diriraayo anana waligay ma tagin ya سوى أكتانيه وحلا سقايستم هاي كل يجين مركز حرنيه هو أنا جاي أديك بقى هدي النلاب هو يردول كاس إسكا قاطع ما أنا قاعدنا إنه يرد هدي إسكا قاطع حتى هدي نليري ما أنا قاعدنا وايو حيرو دتك وحن أركز لو أنا جاي يوروب دان جوكني دتك ناس رجال بيتك وحن قدرنا هو الريسورسز هانتي عن قدرنا
biyab aan ku dirirnaa oo bad waxaan ku dirirnaa hoo yiri mataqaanaa dhul beera leh dhul daaqsin badan leh dhul wax fiican leh laakiin dhulkaas xataa geeda ma lahan yiri oo bad ma lahan yiri oo webi ma lahan yiri wax lagu diriro oo haddii la kala qaato hadhow cid wax u soo kordhayaan maba ku jiraan yiri marka sababta ay u dirirayaan aniga ma garan karo yiri ay nafta ugu beelayaan okay tii markastoo Soomaalida dirirayso ay ugu soo dhacdaa hadda waxaad maqlaysay isxeexaydasho oo saylac مثلا aad maqlayso wax dagaal waxay haydasho booramana waa ka bilowday inkastoo sabab la yaab leh ay tahay iyadoo wax la isku haysta ay ahaayeen walax kale مثلا saylac laga hadlaa iyo heer ciisa lagu soo bandhigayaa iyo lama soo bandhigi karo iyo dawladda Soomaaliland oo marna tiraahdo waa la ogol yahay marna tiraahdo la joojiyo iyo haddana boorama la isku dirraba ماشي wax ka socdaan buurma ماشي wax ka socdeen maba ahaba waay xarciisa iyo saylac ma joognaba ha ma la joogno marka xataa labada qabiile la isku soo hay isku sahida liira waxaas moqta waa la isku soo ha diyaha marka la isku soo waay labada qabiile la isla raadinayeen isdirraan xataa ma wada joogaan boorama hal qabiile joogo oo samaroon liiraado qabiilka kale tan ciisa liiraada oo saylac sheeganayo marka saylac labadaba waa sheeganayaan laakiin boorama meel la isla sheegto haay ma ahaba oo boorama waxa jooga biirsi kaliisa jooga haddana gudubirsiga marka dagaala meesha haddana ka dhacay waad yaabaysaa oo haddana la leeyahay wali wuxuu raad la leeyahay dagaalkaas oo saylac war meesha saylacna waa nabad saylacdina waa nabad ya marka dadkan laakiin waxay diidan yihiin buugga la soo bandhigi doono aniga waxaan xataa garan waayay hadda saylacda laftarkeeda waa la isla degan yahay sidaan garanayo adiga aan ku hayo warka waa la isla degan yahay haddii la isla degan yahay ay qolo tiraahdo mataqaanaa buug baan u xafladaynaynaa qolada kaleeta ma iskala xafladeeyaanba maxaa uga dhimaya ama maxaa ugu soo kordhaya maxay kugu dhimi kartaa xeer ciise oo lasoo bandhigaa waa qabiil un Soomaaliyeed haddii xataa ay inta yimaadaan gurigayga yiraahdaan aan ku dhigana xafladda day yiraahdaan maxaa dhibho ku jira marka waxaa garanaysaa meeshan in wax kala loo socdaa marka labadan reer waa la isla doondoonay ayagana dadkoodina intoodii wax garatana waa dadaalayaan inay ka leexdaan kala leexleexdaan oo la isku dhicin ya dad kaleetana gacmo kaleetana waa ku jiraan oo rabaan inay isla doondoonaan ay isku dhacaan marka waa nasiib darrooyinka jiray ka mid tahay oo haddaba saylac waa isla degan yihiin waana ka badan tahay haddii xataa adiga kale qaada lagu yiraahdo xataa waa ninkii wuxuu sheegay Watson al leader ninkaas Ingiriiska meel ay macnaha wax badan hadda oo macna leh ku dhex jiraan waa runta haddii hadda qabiilka Soomaalida qabiil kamid la yiraahdo Soomaalidu dhanaa kaliya la isina wada ka guurina taa ma rabaan sidoo waxba kuma qabsan kartid baadna dhul tirada ka batay Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada density-ga uu aad ka u yar yahay macnaha waxa laga yaabaa halkii qof oo Soomaaliya inay ku soo aadi karto ilaa 10 kilomitir ka badan dhul aan ma jirto dhulku waa naga badan yahay Ismaaciil loo yacad sar 10 biyaar ku bataa la yiraahdo waa naga badan yahay dhulka aad u nooga badan yahay haddana inaan ku dirirno waxa waaye aqligii nomadska dadkan reer guuraaga oo waxa la yiraahdo isla weyne qabiil ama qabiil ya oo dhahayso qabiilkayga qabiilka halkan ka fiican ama qabiilkan kala masuubi kariyo waxa way jaahiliyad oo gaamurtay hadda saylac waxay kamid tahay misalan magacyada Soomaaliya marka la fiiriyo magaalooyinkeeda la yaqaano ma ugu qadiimisan kamid tahay xadaarada sare leh oo taariikhda sare oo fog leh in hadda la yiraahdo marka waa la isku diraa waa nasiib darro waxa kaloo la yaab leh magaalada Boorama waa Oxford-ka Soomaaliya la yiraahdo وحرمت علمك الصومالي مركز حرمتي أقونته وين أقونته ديات مركز حضارة داس المحنمة داس ما أنت مركز لقاعد قف كستو صوماليا وما أنت صومالي يكونوا الحلقة الميسي ريرك سني بورم الجوجان ديات وحبر شو قدمت علم قدمت ديات مقال النوع عاسى وهاي مالها أقول نبضون ودنك ديات ضد نبض جعل جوجين ضد قوة أقونته بدن جوجين سيسكو قبل كرتاوه وبورم وعلاد صنع عارف كلام وح عجيب كلا وحي كصاب اللعبة جودها يتوبي دير النبأ على قصار رأي هرتا حير كان عيسى ما هو واحد عصب ولا حول يزري دور بقلاص سنة
jiray waayo hadda waxa soo cusboonaysiiyey waxa kaliya waayo UNESCO aqoonsatay UNESCO taqaanaa qaramada midoobay hadda ugu qaabilsan dhaqanka iyo mugtahay waxbarashada iyo waxaas ugu qaabilsan ayaa hadda aqoonsatay inuu yahay dhaxal soo jireenoo bini aadamka qayb ka mid ah ay leeyihiin ayaga magaalooyin ay aqoonsadaan tuulooyin ay aqoonsadaan wixii qadiim oo dhaxal reeb uba u noqon kara ummadda yaa ayaa aqoonsadaan marka xeerkan waa xeer beri horeba soo jiray laakiin hadda UNESCO aqoonsatay okay markay aqoonsatay qola waxay tiri waa yahay aan u xafladayno wax kale oo meesha ma yaalaan aan u xafladayno intaan u xafladeynaa waxaan ku xafladaynayaa saylac waayo ugaaska oo beesha ciise waxaa lagu duubaa laftarkiisa saylac ya marka ugaaskaas la duubayo lama diririn ya marka xeer ciise lasoo bandhigaa la yidhaha maxaa loola diriraa waa yaabe waana tagaa hal maalina la xafladeeyaa buugyaa laga sheekeeyaa taariikhdiyaa laga sheekeeyaa waana la kala tegi rabaabe maxaa la kala qaadan rabaa horta maxaana ku fadhiya marka meeshaas waxaa ku jirta arrin siloon dowladda somalilandna maamulkaas somalilandna si fiican uma maamulin marka maxaa loo siyaasaday haddii xeerkan UNESCO aqoonsatay ciisuna waa soomaali gudubirsuna waa soomaali aad iyo aad marka haddii xeerkan xeer soomaaliyeed yahay maxaa dhibaato ku jira waxaan arkayay nin mas-uul oo nin aqoon-yahana ah oo ka hadlaayo qaar baa waxay meel dhexe ka soo abuureen walax diinta khilaafsanaa ku dhex jira xeerka soomaalidana waxaaba la hubaa intii nebiga noolaa inay diinta soomaaliya timid hijrada ugu horeysa la sheega nebigoo nool ma gaarinba ayay soomaaliya timid diinta marka dadka xadaaradaas diinta saaska u fog leh ayaa nahay marka qole xeerkeeda uu khilaafi karo sharciga islaamka maba jiri karto qolaa laakiin meel dhex ka soo abuurtoo tiri walax oo xeerka islaamka qaabilsanaa ku jira ama sharciga islaamka qaabilsanaa ku jira okay ama kaba soo qabano kumaba jiraan anigana ma rumaysni ninkaas sheekhaana mataqaanaa wuxuu yiri kuma jiraan waa beentood waxay sheegayaan laakiin marka aad fiiriso hama ku jiraan ama yaysanba ku jirine adiga wax lagugu dhaqaayo miyaa wax adiga lagugu dirqinayo miyaa cid kugu qasbaysa male yaaba kugu qasbooyo annaga xaflad iska qabsanaynaa la yiri maxaa ku dhex jira marka laakiin dhulaa la sheeganayaa ku qoran ciisuhu inuu dhul si gaar u sheegtay dhul la wada degaya keligaa leh uu dhahay neehow marka aad fiiriso waxaan la yidhaahdo territorialka bani aadamka keliya u gaar maaha xataa xayawaanka ya qaar badan dhul sheegashada ku dhex jirtaa xayawaanka masalan libaaxyaha dhurwaayada shabeelka bahalahaasoo dhan kulligood waa territorial ayaga xataa waxay leeyihiin degaan aysan u ogoleen inay cid kale soo gasho حتى هي حاسية بناء كجرا لي يقبيضو كلي دقاني آجا وحرن واي وارلو دسوا مركب بني آدمك لكن واكسو قد بهيركاس بني آدمك واكسو قد بي إنه متقنا قف إسلامات مجالات هذا مجالات مقصدة عشيقتها يا حديدة سوق قلنا يا دان سوق اللي لما بكلوا إلا قف كأنه يقول قاعد كوي ماذا كور أركي ميسيدي يا هاد قولي أنا رومي كوي ما رأي قفكي قفنا نقول قاعد هذا قولي الله ده وح كبد بليد كبد المبلي هيد وهذا المرك واقف مجال تركي سنين إيجار تقرأ شيء قريب مجال أصل إيجار تقرأ كور مرك وحوي وحيالها دبال نمضعة أو نقول حجرة عيسى دورة أنا عليه هي الهاو هدارت قد بيرسل أنا عليه الهاو أديكن هدارت حاسو كردي qofka gurigiisa loo aadi rabaa yaa kii guri ku lahay meesha gurigiisu aadi rabaa kii kalaatana ama dad ehelkiisa ula seexa doonaa ama hotel uu seexa doonaa marka wax la kala qaato haayo meesha anaa leh iyo adiga malihid iyo maba yaalaanba meesha Soomaa anaa leh ma wax lagu lahaada hadiya waa su'aal fiican waay adi maxaa kaaga muuqday marka fiiriso xaaladii la soo maray maxay tahay xudunta arrintan oo kale waxa la sheegay wax ka weyn jiro dad la dilayaa colaada la baabulaya waxa socdo wax dareemaysa inay sahlaneen marka la fiiriyo sida social media iyo bulshadii iyo looga hadlay idaacadihi waxaan yaa hoos ka riixay waxaan arki jiray waad ogeyd anaga dalkan ka warrami jirnay intii dagaalada Soomaaliya oo dhan dagaalada sida ay u bilowdaan ma aha sida loo socdo xamar waxaan ku arki jirnaa ku sheegaa midalan Mooriyaan
wiilal maleeshiyada ayaa waxay dhacayaan baabuur markay baabuurkaas dhacayaan ama baabuurkii qaateen hadday rabaan qof iyo labana waa ku dileenba waxaa la dhahayaa maleeshiya reer hebel la dhihi maayo xataa waxaa la dhahayaa reer hebel baabuur ka dhaceen ya okay reer hebelkii kalena marka waa inay baxaan baabuur kala soo dhacaan waxaad u malaysaa marka dagaalkaasi inuu ka bilowday burcadnimo iyo in wax la kala dhaco ayaad u malaysaa hadhowtaa dib waxaad ka arkaysaa ilaa dagaalka inay labadan cidood isku dhacaan qolaa dab ku shidanaysayba oo rabta oo siyaasadeed marka hogaamiyii kooxeedyada dagaalada saasay u bilaabi jireen marka dagaalku mooryaantan ma aha marka dagaalka meel kale uu ka socdaa dad kale taa isdirarsan marka hore midii la isku saxnayo waxbaa jiri kara marka aniga waxaan u arkaa inkastoo dagaalka la yidhaahdo sidiisaba moogtaa waa sida dabkoo kale waa fidaa dagaalku meeluu ka bilowda haddana waa fidaa waa sida dabka uu u fidoo kaleeto meel ma taagnaanayo dagaalka waaba taa tusaale waxaaba kugu filanba soomaaliya colaadeeda sokeeye inay kasoo bilaabatay waqooyiga asayse usoo socotay ilaa koonfurta ilaa kismaayo ka baxday sooma ya hadda waqooyiga kasoo bilaabatay dagaalkaas usoo bilowda usoo socday ilaa kismaayo waa tagay soomaha dalka geeskiisa kale marka waqooyiga ka socday ahayd in la qabto oo la joojiyo oo mahiisa lagu joojiyo iyo ay ahayd laguma joojiyo marka kuwii koonfurta si usoo socoto haddana ma lees dhihi karaa haddana dhinac kale uu ka bixi rabaa haddana koonfur ka tago haya dagaalka haddana waqooyi aadi rabaa meeshaas uu ka bixi rabaa haddana ya marka waxaad moodaa markaad trend inuusan dhammaan waa suuragal haddana mar kale soo waa isla dadkii haddaanan la helin hoggaan fiican oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo dadnimada ku fiican oo iimaan leh ilaa dad la dilaahi waxba kuma yimaadaan waa aragnay intaasaan soo joognay qabiil kale ka adkaaday weligaa ma aragtaadi oo liira qabiil hebel ah inta laga adkaadaa qadka laga bixiy waaba dhammaadeenba mar damba ma hadli karaan weligaa ma aragta ma arkaysid 2000 wixii ka dambeeyay waxa la yiraahdaa Soomaaliya waa ka dhamaatay magaalooyin la isku haysto dagaaladan qabaa'ilka hubaysnaaya magaalooyinka la kala qabsanaya 90 sano ugu horeysay dhici jireen oo ayadana xataa la haysan karin meeladan xilliga Cabdiqaasim dawladdiisa la soo dhisay wixii ka dambeeyay waa dhamaatay la yiraahdaa waa soo roonaanaynay aqliga dadkana waa soo koraayay oo waxaa la arkayay in aanan isaas wax lagu gaaraynin dadkii kari jiray dagaalka ya ayaa soo caqliyeysanayay marka in hadda caqli darro loo noqdo oo la yiraahdo xeer alla soo bandhigayo iyo la yiraahdo waa la isku dirira nasiib darrada dhowr iyo 20 qof wada ku dhimatay boqolama boqol iyo ka badanna waa la dhahay waa ku dhaawacmeen maxay ku dhinteen maxay ku dhaawacmeen what happened ya marka si fiican u fiirsato waxaad leedahay meel kala Soomaalidu waa Soomaali teeda kale tan meel kala loo socdaahe maba aha waxaan heeraysa wax ka weynaa jira walxaa la halay baroortu orgiga ka weyn okay maamulka meeshaas ka jira ee Soomaalilandna sida uu u maareeyay ma fiicna oo hadda ciidankoodii waayaba waxa dagaalka galay Sooma oo dadka laayo la sheegay xabad waxa haysta ayaga waa cid ka xabad waxa haysta laakiin waxa banaanka la taagan horta ayaga waa maamul warfi tuurayeen shacabka warfi tuurayeen qofba waxa haysta ku dhufana xawri ninkii mataqaana cunug yara dhagax ku dhuftay moqt aso inta soo jeesto asagana xabad bul ku sii cunug yara war ma halanta adiga aso waxa xawdishan asba waxa haysta ugu dhuftay anna waxaan haystaan ku dhufaa فيومي بجرت عقلي فيومي مدنا ما جران marka nin walba waxa soo tuura ninba waxa waa soo tuura laakiin shacabkii warfay tuuraya shacabkii warfay tuuraya ciidamada booliskana xabaday tuureen xabadaha xataa day warning kor laga marsiyo dadku waa roonaa lahayd moqt isbitaal la arkay isbitaal xataa loo galay dad la dhahay isbitaal dad lagu dhexdelay marka waxaad moodaa waxaas walax meel kale laga karihay ahaayeen maba ahayn babuuqiis isbitaalku ku dhex jira dhaawac ku dhex jira masajidadka boora muu joogaa ya masdad mudaharaad marka waxaad garan kartaa si loo maareynayo cidii muraadkaas lahayd waa is og yihiin ma rabaan inaan magacaabe ayaguna waa is og yihiin ilaahay inuu iimaanka geliyo ay ka joojiyaan dadkaas ay isku dilayaan oo macna la'aan shalay ciidamada Soomaaliland ay u dhaqmeen waa tii abuurtay lascaanood waxa aragtay ka dhacaan
haddana waxaa ka socda boorama marka bar walba ciidan la adeegsanayo oo weliba waqooyiga lagu yaqaanay dhaqan iyo odayaal iyo culimo iyo inay hawsha aad u galaan aad iyo aad marka dambe waxaad moodaa waxbaa dumaya oo marka hore waxbaa dumaya waxaad moodaa somaliland ilaa iyo intii hadda oo laascaanood meeshaas dagaalkeeda uu ka bilaabanaya waxaad moodaa in wax walba majority leeyihiin moogta boqortooyooyinka maray soo dhismaayaan xooga yeeshaan meeshooda ugu sarreysa markay gaaraan haddana waxay bilaabaan inay soo dumaan tartiib soo dumaan oo soo baaba'aan marka waxaa muuqata calaamadahaas in maamulkaas somaliland la yidhaahdo waa soo bilowday 91kii ilaa waxaas wuu soo xoogaysanaya maamul fiican nabaduu sameeyey wax badan uu sameeyey adduunkii dadkii dhammaay soomaaliyeed meel loo hirtay noqotay xataa oo dadka soomaaliyeed ciddii meel ku dhibtootaba xataa ay aado ayay noqotay hadda waxaad moodaa haddana markay ugu sarreysay markay gaareen ayay hadda soo dumuuhayaan marka ya waa soo burburaysaa marka hadda laascaanooda go'day waxaa kusoo xigi kara waxyaaba lamida iyo aniga ma dhahaayo hadda ama boorama ku xigi karta ama meel heblaha inaan afka ku ballaariyo ma rabo laakiin wax saan sidaas u eg jacayl meesha ma yaalo waana aragtay durbadiiba marka dhagax tuurka iyo xabadaha la isweydaarsaday calaamadii oo awdal state iyo waxaa lala soo baxay calankii soomaaliyeed calankeeni buluga ahaa ayaa lala soo baxay ayaga calantabashadaas way jirtaa mar walba qofkii caroodaba inuu calanka soomaaliya la soo inuu calanka soomaaliya la soo marka taa macnaheedu waxay tahay dadku waa la haystaa dadka waxaa lagu dirqiyo haya walxayna rabinaa lagu dirqiyo marka calanka soomaaliyeed horta dadkaas hadda la brainwash garay oo madax laga dhaqay calankaas waa calankeeni kulligeeni markay dowladda soomaaliyeed ee xukunka meesha ugu horreyso xorriyadda qaadato 26 juun soo maahayn calanka meeshaas la soo koo ahay soo weekaay kana wahay midkan buluga ah marka kaasaanba wada lahaynba runtii ya ka hoos calamo kale waa la subsan karaa oo xataa xeerta qaadiri iyo saalixi iyo kulli xeer waxay leeyihiin calamay leeyihiin Soomaa marka waxaas waxa la calamo hoosaadyo marka haddaad Somaliland tahay iyo haddaad meel kale tahay iyo haddaad Puntland tahay waxa rabta waa calamo hoosaadyo waa la lahaan karaa si aad ku xiroodo waa kana kan ku xiroono oo la isla lahay laakiin waa kana ya marka dadku dareenaa jira meeshii waxay soo gaareen lagu kala baxbaxay qaaraa waxay u shalaayayaan waxay ku leeyihiin hadda aqoonsigii soo dhawaaday ya ayayba mataqaanaa dalka ay sii burburinayaan Somaliland aqoonsigii soo dhawaaday bal hadda u fiirso eraygaasi ilaa intii ay 91kii bilaabeen bagooni sutaaga waxaa la dhahay hadda imaana aqoonsi imaana Ethiopia jecel aan aqoonsanayso ayaa la dhahay hadda waxay Trump baana jecel aan aqoonsanayo war heedahay waxaan jeclaan lahaa in dadka siyaasadda ka shaqeeya Somaliland waxba og yihiin waa dad waaweyn oo malhi waa dad iga aqoon yar in ay dadka ka daayaan beenta iyo colaadda dadka dhexdooda la isaga abuuro oo masalan hadda mar aan ka soo warramay Hargeysa doorashadii daahir riyaale aan ka soo warramay ayaa gabar yar oo 16 sano ilaa inay jirto 17 sano dadka safka ku jiray ayaan waxaan ka qaaday vox pops waxaan ay yiraahdaan codadka dadka ka qaaday microphone la dhex maray marka gabar yaraan waxaan ku yiri adigu yaad codaynaysaa maanta markaasay tiri anigu udub baan u codaynaya markaasaan waxaan oo maxaa dhacay kuwa kale maxaa ugu codayn weyday maxay ku xun yihiin markaasay wax tiri dee xamar bayna geynayaan kuwa kale markaasaan waxaan ku yiri adigu xamar weligaa ma tagtay markaasay qof tagay mataqaanaa aabaha iyo hooyada iyo xamar ma tageen ayuuba xataa may tagin yaa ku yiri marka xamar waa xun tahay xamar bayna geynayaan waa maxay haddii xamar lagu geeyo maxaa halaabayo aadiya arma jara laga hor joogaaba waaye marka waxaad arkaysaa sel marka go'aanka qofkan uu gaarayo wuxuu yaqaan maaha waa lagu shubay waa lagu shubay xamara looga dhigay wax kale looga dhigay caalankii buluga bay la soo baxay war caalankaas oo keenay ma aha islaan mata ya ama aan hadhow aqoonsi hal hel ama yaan la helin laakiin kaas waa kan kowgii lahayn ba anaga oo agteena ka yimid qof dhahayo aqligaas la imaan karo kuma jiro kow ya waliba qofkii soo qaato waa lagu colaadinayaa okay aqoonsiga marka yaa bixiya xagu ka yimaada aqoonsiga dadkaas waa weyn oo siyaasadda ka shaqeeya Somaliland way yaqaanaan aqoonsiga iyo sida uu ku yimaado way yaqaanaan hadda ayagoo sidaa u yaqaanaan ay haddana dadka saas u sii maran habaabiyaan dadka ku sii kala fogeeyaan hadda kor wasiiro
مرة إن المجعبة عن شيء سنة هنا ويقول هذا نيو حسن بريسو مركات وقتها يعني قيبت أفكار إنجليز كان بي بي سي ورمزري ما حد نوتر هذا self declared administration حد نوتر كاس ما دقت ديست سومالا كلمة سكينة تراه مركز سام حنقول ور هذا هي self declared دلوقتي هنا هرتر أقوانس مياد ليدي مايا إذنكم بقى اسمها عابي سوما ها وحق مركز وحن أنكو هذا ليا لكن دائرة هذا حتى حق أسوانا اللي بقى هنا لا فدائرة هذا وإذنك يلي إذنك والحق ضرّة oo aad samaysan haddaan idin idhaahdo ka joojiya idinkana daaya taas ma yeelaysaan bal noo sheegay dhehen markaasaa idinkana waa ogtiin ilaahina waa ogyahay in aanay reer koonfur kusoo duulin hargeyso aysan dilin dadka oo reer waqooyi haddana 24 saac waxaad tidhaahdaan koonfur baa nagu soo duushoona dishay ya ayaa dadkiina u sheegtaan oo beenaho aad ogtihiin markaad dagaalamayseena koonfur iska kicinayna uma dagaalamayna marka almeeno idinkana taas daaya waayahe ana selfa declaredna idinka dhaafa idinka taas beenta markaas warda wuxuu nagu hadlay war dadka maxayna ku haysanaynaa markaa dadka inaanu haysanaan doonaynaa haddaynaan cadow u samaynin dadka ma haysan karayno war aragti siyaasi adduunka jirto aragti siyaasi adduunka jirto dawladda cadaawada sameeyaan ama ha jirta abiyaar jirin way sameeyaan okay si loo wada jiro si cadow fog loo abuuro shay loo abuuro waa inay jirtaa marka in cadawtooyadaas oo la sameeyo oo siyaasiga waa nasiib darro jirto ilmihii yaryaraa ya ee ku dhex dhashay kusoo barbaaray kusoo weynaaday hadda waa 34 sano waay cunugii maalinkii la dhisaayay Somaliland maalinkii lagu magacaabayba kii dhashay maalintaas maanta ilmu leeyahay waliba ilmu waaweyn uu leeyahay ya marka weligiis wax kala ma arag iyadoo koonfur la caayaayo iyadoo koonfur waa cadow la leeyahay iyadoo Soomaaliya waa cadow la leeyahay iyadoo calankaas buluga waa xun yahay bas uu arqaba wax kala ma arag kaas marka ma lagu sii wadayaa beentaas weligeed masanimaha waa ka daynaa ko aqoonsiga markaa ku soo haray waxaa loo sheegay dadkaasi Ethiopia ayaa na jecel hadda waxaa ugu dambeysay Soomaaliya heshiiskii safgaradkii oo Somaliland dholaan badan siinayna idinkana aqoonsada Ethiopia balankobaheeda gashanno annaka ya gaalada saas u hadlaan Soomaaliya ya qofka kobihiisa gasho macnaha waxaan ka soo qabanayaa anigu hadda maanta inaan Ethiopian ahay ya Somaliland waxaan u sheegaa inaan jeclahay ya inaan kala shaqaynayo aqoonsigeeda ya aniguna aan aqoonsan doono waliba ka mid noqon doono kuwa aqoonsanayo ya okay waayo aniga Ethiopian ahay dan iigu jirtaa inay Somaliland dawlad noqoto dan iigu jirtaa aniga Ethiopiankii baan ahay mogtahay Ethiopiankii baan iska dhigayaa marka waxaan ku fikirayaa warheede haddadaan la joogo ayaa laba madaxweyne oo Soomaaliyeed ayaa igad igula jirta waa madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa urur goboleedka igad igula jirta oo laba cod ah oo haddaan African Union ka tagna midowga Afrika tagnana wali laba cod oo Soomaaliyeed la joogta qaramada midowga haddaan tagnana wali laba cod oo Soomaaliyeed joogta haddii kan aan aqoonsado oo ama aqoonsi uu helo soo madaxweyne kale saddexaad ma noqonayo oo aakhirkana Soomaaliya ilaa dan Soomaaliyeed bay kulligood ka hadli doonaan cadowgiga kororsaday marka marka cadowgiga man soo kororsanaa marka hadda laba xaba qaad ka taagnay ma mid kale ku soo daraya waa istaraatiijiyad weyn waa nin doqora uu sameyn kara nin doqona uu baa sameyn kara marka waxa la rabaa in dadka Soomaaliyeed hargeysa iyo meelaha jooga in intaas fahmaan horta in loo sheego dadka reer waqooyiga in loo sheego inaysan Ethiopia doonaynin inaad madaxweyne noqoto aysan xataa ogolayn حتى هذا هو أقونسنا على الرئيس. لنا أكرر توبي دم موجري كرتها. إني كلا جويس سومالي لنا أقونسته. أو أي نقول عدو جديد وتبرير هذا. مريض الصومالي حوق له. مايا. أي دباتين كرت. من لماذا دباتي قطع؟ من لماذا هذا؟ دبات هو قطع لكن واحد يجسي دبات بدن متك السياسية هو أدون كأرتوس مسرحية العالم كل سياسية. يا. أي يجسي دبلان. أي يجسي دبلان. مركز سئان isbedel uusan baa u dhicin status quo sideeda ku hay Soomaaliya xoog lana aysan samaysmin cod kale xoog laho asagana yimaada qaramada midoobay ama iga dhexdoodana yuusan imaanin marka say hadda tahay ku hay Ethiopia taas waa waxay saaxiib ku la tahay wax kale ku sheegaya
bahalka la yidhaahdo kala go-go-ah ya isagana waa sida dagaalka camal waay waa fidaa isagana Ethiopia yaa uga nugul inay kala go-go'do ay wadamo gogooni noqoto aad iyo idaa u samaysan maqaabkaas saas u samaysan because ayadaa nations isku af ma aha isku dhaqan ma aha isku diin ma aha ya haddii Somaliland ay go'do ya tusaale waxay u noqonayaan in kilka shanaadna uu go'i karo ay go'i karaan Tigreega ay go'i karaan Amxaarada ya qolo kasta waxay leedahay oo anagana gooni isu taagan rabnaa dawladeen yaaba aqoonsatay in ay gooni isu taag rabtee anagana gooni isu taagan rabnaa muqdisho waa ka shaqeyn kartaa garab ayada lafteeda inay aqoonsato baabada kale waa ka shaqeyn marka ma aqbali karto marka Ethiopia marka aan dhinacaas kasta fiirino dhinac kasta markaan ka fiirino Ethiopia sinna u yeeli mayso xataa haddii adduunka dhan isu soo ololeeyo ya dagaalay ka xigtaa in ay Soomaaliya inay hargeysa Somaliland inay dawlad gaar ah noqoto madax bannaan عقلك السليم كما قلنا عقلك السليم كما قلنا inay Ethiopia sidaas aqbasho مديها lagu dilay ma badsanaysa marka dadka Mareykanka Trump qadiyada laga iibiyay ilaa Trump gaartay Trump waxa waa nin madaxweyne oo aan conventional ahayn madaxweyne caadi ma aha Trump waad ogtahay nin oo public officer uu soo qabtay iyo ma aha ya afkiisana uu qoyano wuxuu rabo iska dhahaa waana nin waayeela waxyaabo badan oo dadkiisa xataa dhibaayo ayuu dhahaa marka waxaan laga sheegayana oo la leeyahay Somaliland oo aqoonsayo Somaliland loo geeyay iyo waxba kama jiraan state department ka soo baxay ugu dambeeyay waa arkaysa ya midnimada Soomaaliya lama taabanayo okay dad ayaga lobbyists ah lacag siiyaan sida Ted Cruz yiraahdo iyo dad lobbyists oo xildhibaanadooda Congress-ka waxa ay ku jiraan iyo lacag siiyaan Somaliland lacag ku bixiso sida baalnimo ugu bixiso ayaa jira oo marmar meelaha ka shaqeeya Somaliland waa dawlad weyn maldhiga kara hadayba gaala la luushayso ay lacag ku bixinayso xildhibaano gaal inoo kala hadda xildhibaanada jirnay la luusho lacag lagu bixiyo fiiri inaad sheegay hay'adaha inay kala shaqeeyaan xildhibaan inaad la luushto lacag badan ma aha ya lobby groupka ugu xoog badan oo Somaliland ay isticmaali jirtay South Africa waxa موجودنا أساس أكتر كافر أفريقيا أيوها كاسي وحيكون بحين جرتي يعني حلي أنا ويا السنة كلام إلى بقولي كنتم خلاص بقولي كم دولار واحد بدم معها لكن واحد ما كسر بحي كلام واي شو الله حلي عيالي سعودي لا حلي عيالي سعودي عيال وابكي ماشي كل ما هاي مركب أقانسيا يا بحية ما حصل وكيرا سؤال شو مهم سؤال شو مهم سن اللي سويدي aqoonsi waxa bixisa qaramada midoobay number 2 qaramada midoobay urur goboleedya ka hooseeya Soomaaliya hadda mesela African Union ka kale ilaa IGAD isi gaaray ururadaas dhan ka hooseeya kulligood waxay ku shaqeeyaan Soomaaliya qaramada midoobay charterkeeda aqoonsan African Union iyo Arab League ama waxaan iyo dhan ururada caalamiga ah oo dhan koow qaramada midoobay ayaa aqoonsan waxayna rabin lama rabaan waxaan u imaanaynaa marka charterka qaramada midoobay muxuu u samaysan yahay mabda'a qaramada midoobay u samaysan tahay waxay tahay in la hiigsado in maalin maalmaha kamid ah adduunkan oo hal dawlad noqdo oo qaramada midoobay la yiraahdo ay xukunto oo ninka secretary generalka uu yahay madaxweynaha adduunka waxa kale oo dhan ay dawlada hoosaadii iyo maamul hoosaadii yihiin waa meesha loo socdo marka in dadka la isu geeyo halkaas meel lagu mideeyo ayba u socotaa qaramada midoobay marka qaramada midoobay marna kama shaqeynayso in wax la kala furo marxaladayna soo maraysa ilaa dagaalkii labaad ilaa maanta okay waa dhacdaa marmar gobol la gooyo hadda mesela koonfurta Suudaan u dambeysay oo dalka adduunka ugu da'da yar ya Kosovo iyo waxaad arkaysaa sidoo kale marmar way dhacdaa in walax xoog lagu kala gooyo iyadoo ayna qaramada midoobay wali la ansixinin markaas waxaa jirta dan marka dawladda Mareykanka si ay u aqoonsato Somaliland ay u siiso aqoonsi waxay ka fakaraysaa okay haddaad aqoonsato horta waxay ka rabaysaa wixii dalka rabi lahaa heerka qaramada midoobayna wali kuma jirto ya wixii dal rabi lahaa oo dhan ay ka rabaysaa marka waa in adiga shoulder ganaysaa mas'uuliyaddaas waa in adiga qaadaa ko aan aqoonsadii maxaan ka helaa another question so ya wax ma yaalin aan ka dafi karo ciyow ka daldala karo
oo aan aqoonsigaas ku bedesho aqoonsanaha aan iraahdo aan ku bedesho misalan Southern Sudan waxa loo gooyahay waxay shidaal ya shidaal ku jiray oo degdega waliba oo fudud in la soo bixi karo haddana aqoonsan maxaan ku weynaa marka dana haddana aqoonsan lafteeda maxaan ku weynaa aqoonsan hadda maxaa iga maqan ku weynaa iga maqan okay haddana aqoonsan lahayna maxaan ka yeelaa marka Somaliland way leedahay macaadin of course shidaal waa dhici kartaa inay leedahay ya laakiin labaduba walax sahlan oo ciyow la soo bixi kara ma aha waa walax u baahan investment badan in horta kow la maalgeliyo maalgelin badan u baahan waaya maalgelin badan aan geliye inteebe igu qaadan kartaa iyo inteebe igaga soo noqon karaan waxaygi iyo faa'iido waliba oo dheeraada oo riskiga aan galaayo ah meeshaasi ma xasiloon tahay oo xasilooni ma lagu hubaa intaas oo sano oo waxaas aan ka shaqeynayo ma lagu hubaa inay xasiloonaanayso maya aloora khatarta iyo profitka yaa weyn marka khatarta weynaanaysa marka Mareykanku aqoonsan maayo marka caadiyan waxa la dhahaa dabeecadda gobolku ma deganaa gobolka aan ku naalno sidiisaba ma degana teeda kale dawladda Mareykanka waa dawlade ma ogtahay inaysan la ganacsanin dadkeeda macnaha dawladdu hanti ma laha adiga hadda UK aad ka timid Ingiriiska waa aragtay dawladdu maxay leedahay dawladdu waxa waaye regulator kaliya waxa weeye sharciga u haysaa dalka sharci fulin leedahay ayay dalka u haysaa laakiin wax ganacsi la yiraahdo dhan airportkaas Heathrow dawladda ma laha British Airways dawladda ma laha waxa tareena aragtay dawladda ma laha waxa warshado hub sameeyo aragtay dawladda ma laha waxaas oo dhan shacab leh waa kambaniyal waa shirkado okay marka Mareykan meesha uu tagayo dawlad ahaan lacag uma geli kariyo laakiin in shirkadihiisa kambaniyashiisa ay ku dhiiradaan oo ay tagaan shirkadahaasna ma tagi karaan haddaysan haysanin daafaca dawladooda damaanada dawladooda haddaysan haysanin ma aadi karaan war waxa complication isku dhex jira ma arkaysaa horta in dal la aqoonsadaa saan u fakarnay si adduunku fakara kala duwan tahay marka waxaan jeclaan lahaa in aan ugu caqli celiyo mas'uuliyiinta igamana caqli yaree oo Somaliland in horta dadka aysan weligeed been lagu wadine ya ugu yaraan mararka qaarkood dadka runta loo sheego sidii wax ku imaan karaan loo sheego waxay dhihi jireen wixii shirar Soomaaliya loo qaban jiray anagana ma khuseeyo shirkaas anaga waxaan dhihi jiray markaan u tago war waa idin khuseeyaa meeshaas ma ka dhex sheegatiin dadka wax idin kugu darnaayeen waaye ma inta dhex tagteen dhahdiin walaalayaalow inaan kala tagnaan rabnaa ya aan kala tagno oo saas isku ogolaano cidda shirka u qaban qaabinaysana ay kayskooda soo hordhigaan ay yiraahdaan sababahan aan u go'aynaa marka doodina waa ka dhuumanayaan inay go'aan waa rabaan dhinaca kale marka la fiiriyo dadka raba in dalka la sii mideeyo oo gaar ahaan aragtidan tala xamar ee la leeyahay Hargeysa ma go'i karto Soomaaliland ma go'i karaan maxaa dan ugu jira horta xamar waxa Ilaahay ugu gargaaray maba ogaba dadkeeda siyaasadda Somaliland go'aysa iyo ma go'aysa iyo maba ogaba dadka xamar jooga siyaasiyan ma aha dad wacyigelin sare oo siyaasadeed haysta ma aha waxaad arkaysaa masalan haddii aad Hargeysa tagto hadduu qof soo qaata calanka buluga oo soo huwado shacabkaaba la diriraa intaan dawlad la gaarin ya ma aragtaa ya xamarna حتى على كي يهودا ده صاحر تقف ولا هاد الميسو يا كسومالاند soo xirane meesha rabtaad la maray waxaad rabtaad soo biqof kula hadlayso marka shacabka iyo siyaasiyiinta anaga waa noo kala soocan yihiin marka xamar iyo koonfurta isku ma xirna marka shacabka waa dhex joogi kartaa Somaliland aha dhihi kartaa waa jeclahay Somaliland aha dhihi kartaa waa amaani kartaa qof islaam oo kula hadlaysa mal idaacada rabta tag Somaliland ka dhex amaan goon isteegeeda ka sheekay qof islaam oo kula hadlaysa mal qof kula ilmaha guriga noo jooga meel uu jooga ilmaha Soomaaliyeed calanka Somaliland gacanta ku wataa kalama ma jeclada ayaga calankaas ma ogola calanka buluuga Soomaaliyeed ma ogola ilmooda yarka xataa ma ogola see ku dhacday marka waxa weeyaan wacyigelintooda meeshay gaarto horta ayaga tiradan waa yarta oo dad anaga camal ma aha sida xamar oo kale ma aha mugta waana tiro yar yihiin marka anaga naloo barbar dhigo inkastoo dalka magaalada labaad ugu weynaad tahay dadkooda ciyooba warka waa isgaarsiin karaan
masay ciyooba warkiina wada qaadanayaan nina oday hal raadi wax ugu weyn oo qofku lagu abaabulo waa qabiilkooda Soomaalida ها marka qabiil ajandalaha ka xoog badan Soomaali aan ajanda lahayn ها وكا Soomaalidu marka ma abaabulna ما أبابلنا laakiin reeruhu waa iska warqabaan reeruhu aska ninkii leexda xataa wala wariya maxaa ku geey waxaas وكاسا marka Hargeysa horaaba lagala diraa qofkii calanka buluga soo qaato xamarna calankaas oo ayaga midabada leh oo tawxiidka leh hatta soo qaadato qof islaam ku hadlaysa male macna meeshaas ay kala joogaan dadkayna inaysan ku xirneen siyaasiyiinteena marka shacabku ma waraysan u haynin shaqaba kuma laha bas danayba kala haynba ciyaar u arkaan ma arkaan maba ogaba they are not even aware inuu fiican yahay inay xun tahay maba oga laakiin siyaasiyiinteena dadka siyaasadda ka shaqeeya ayaa leh midnimadii waa muqadas maxay u rabaan marka maxay u leeyihiin waxay ku rabaan kow number kow waxa weeyaan in wixii dalku lahaay ay helaan mansabkii iyo manficii qaran uu lahaa inay gacanta ku hayaan qaran ma noqon kartid haddii gobol ka mid a dalka uu kaa maqan yahay dadkiisa marka xataa dad Soomaaliland ay keenayaan dad cid kasta qabiil kasta dad ay ka keenayaan hadda markuu dagaalka ka socday misalan Soomaaliya koonfurteena ama dagaalka badan ay ka dhici jireen xilliga ciyaal noolaayo kaleeto ciyaal mar buu soo jeediyay dadkiisa wuxuu ka waraa dhageysta nimankaas inta isdirirayaan isku mashquulsan yihiin ma calanka ka qaadano oo dhahna waa kana Soomaaliya xaruntii ku meel gaarka ah Soomaaliya waa tan xarunteena runtahay dagaal baa ka socda Soomaaliya waa tan annagaana la yiraahdaa horaana aqoonsi ka helayna ya caasimadnimadana waa helayna dadkaasna waa u gargaari karaynaa oo waxay isku dirirayaan dhaxdooda inay ka baxeen haday ogaadaan isma sii dilayaan marka dhowr faa'iiday noqon lahayd ogow Hargeysa caasimadda Soomaaliya noqon lahayd haday dhowr hawiya iyo dhowr raxaween iyo meelaha ka wataan iyo intii ay heli karaan oo dhan ay ku darsadaan baarlamaankoodii iyo wasiiradoodii ku darsadaan ya sida Soomaaliland buu dhisay ugu darsadeen reeraan ogolay la marka waxay noqon kari lahaayeen dawladdii Soomaaliyeed marka hankaasaan jirin ya ciyaal waa la dirreen villa bayda buu doonayaa in noqdo gurigiisii buu doonayaa in uu noqdo ay dhaheen la dirreen markuu ka yaabo iska dhaafay aqliga wuxuu yahay ninka la yiraahdo siilaan yaxtamaal inuu wareysanayo af ingiriisan ku wareysanayo markaas waxaan iri ma kula tahay maalmaha kamid ah Soomaaliya iyo Somaliland inta la soo noqdo in la wada joogi doono ya markaas uu mikrofoonka afka ka qabtay markaas uu dami marka hore markaas aan dami ilaahu ku naxariiso wuxuu leeyahay Soomaali meelna kala tagi mayso way isu imanaysaa laakiin afka kuma ballaarin karno hadda dadka waa la soo fogeeyay marka waxa loo baahan yahay hadana muddo kale in hadana dib loo celiyo ayaa loo baahan yahay marka hore kama dhihi karo laakiin Soomaali in smortal yiraahdaa waa soo imanaynaa Soomaaliya waa soo noqonay waqti u baahan tahay waxaan baxaan waxaad wada marka siyaasiyiinta dhahaya marka wadanka muqadas way u mideysnaado say maqaamkii dawladnimo u helaan iyo sharaftii u haystaan laakiin qofka amar joogo taasa waxay keentaa marka rabitaankoodaas ayaa wuxuu keenayaa inay marka Somaliland dad Soomaaliyeedna hayaan dad qabiil kasta lehna ay hayaan oo adduunkana ka gadi karaan yiraahdaan waa kuwana Soomaalidii nacaybka markii uu gaaro heer aan qofku uu rabo inaad amaanto asna uu rabo inuu ku caayo waa wax aad u xun xaqiiqda lama inkiri karo meesha nacayb ayaa yaala reexamarku wax badan ma sheegaan laakiin aada loo caayaa aada wax looga sheegaa aada loo lafa dhaamaa inay dhibaataysan lahayn geystayna loo sheegaa waxaas dhan la abuurtay haddana laakiin marka la isweydiiyo maxaa dan ugu jira ninku nacab inaad tiraa soo raac maxaa dan kugu jira waxaa ku jira inaad ka bisishahay qofkaasi ma bisla because wax haddii ku yidhaha waa ku necbaa xataa waxa uu necab yahay ma yaqaan ya waxa uu ugu necab yahay hadda qofka Hargeysa jooga qofka Somaliland nimada madax martay haddii la koonfur maxaad ku necabtahay ma sheegi kariyo ya teeda kale hadda ayaan dhaweyto madaxweynaha cusub Ciro hal walax uu sheegay oo runa marka ayaamihii crisis-ka oo e-visa markuu bilowday xiisada e-visa markay bilaabatay ya oo dadka ay qayliyeen ayuu wuxuu dhageysta Soomaaliya iyo annaga waa run goon istaag baan sheeganaa dawlad baynu nahay laakiin wali wax badan baa isaga kaayay jiro kalama ayna dhamaanin waxyaabaha isaga kaayay jiro waxaa kamid ah biiru baasaboorka waxaa kamid ah oo immigration kiya waa ka e-visa daba socdo hawadii baa isaga kaayay jirta wax badan baa wali isaga kaayay xiran oo aynan kala dhamaysanin ya oo sharciyadeeda haysta marka hal la sugo marka siyaasiyiintooda waa og yihiin
haddii la dhammaynayo hawshaasi inay la kala go'o haddii sida ay ku suurtageli lahayd waa yaqaaniin jidkii la mari lahay waa yaqaaniin haddana dadkoodii uma sheegi karaan ugu yaraan marka inay furaan meelo symposiums maxaa la yidhaha doodo oo ama idaacadahooda ka dhex furaan ama iskuulaadkooda ka dhex furaan ama jaamacadooda ka dhex furaan oo la yidhahdo laga doodo bal statuska Soomaaliya iyo Somaliland in la isku soo celiyo ma fiican in la kala taga ma fiican mid walbana la justify gareeyo ya marka taas waxay soo bislayn lahayd dadka xamar hadda fiir dadka maanta oo dhan hadda Somaliland markay caayaysa reer koonfurka saan waa reer koonfurka kada way caayayaan reer xamarka waxaas ma oga ya wax ay muraadka leeyihiin inay dadka caayaan inaysan caaynin ma kala ogaba ayaga kaligood waa wax moogta gafuur cawa wuxuu dhibaa ninkiisa ma maqash ya marka kuwaas ayaga la iska caaytamooyo maahana dadka xamar jooga ma ogaba waxay iska leeyihiin Soomaal marka arkaan qof oo sida ragayso warma waraakan Soomaaliland waaya kan qaldaan waaya aldo sawir loo socdooya ya ayaga la hargeysa oo jooga sida hadda aniga aan hadlaaya loo hadlo ya xamarigani iyo waxa la dhahay waa arday si hagaagsan u hadal ninka afkiisa wax ma sida hadaloon ugu hadashaa warya ilaahay qaan marka waxa cunsuriyada ku dhex jirta ayaga ku dhex jirta laakiin inta aan ku dhex jirin inta waaba laga jecel yahay xataa marka qofka si Soomaaliyeed u hadlo ya ama qofka garoowe jooga si u hadlo kala soo xamar jooga markuu u hadlo waaba laga jecel yahay Soomaaliland marka sidoo u hadlo waaba laga jecel yahay raxaweynto kala tamayl arrodoodii markay yiraahdaan lama yaabo ya waa la iska ogol yahay marka waa bisayl dadka gobolka jooga ay bisil yihiin ay ogol yihiin ya oo isan macna qolatooyinkii dhaafeen waysan waxyaabaha qaar markii ay gaaraan in heerkan la joogo Soomaaliya xaqiiqda ay tahay in siyaasad ahaan dalku aad moodo dalku waa qabaa'il la isma rabo niyahow horta wixii hal qof waa fiican laakiin waxaa la kow lama karoon wixii fiican haddii la sii badiyo waa sii fiicnaadaan laakiin wixii xun haddii la sii badiyo aad u sii xumaadaan marka anaga waxaan rabnaa dadkan koonfurta jooga waxay ku fikirayaan haddaan sii badanno Soomaali ahaan ya waa sii fiicnaanaynaa oo xataa Djibouti nagu soo biirto kilkashaan nagu soo biiro North Eastern nagu soo biiro waa sii badanno waa sii fiicnaanaynaa marka dambaysan sii badanno waa sii xoog badnaanaynaa waa sii fiicnaanaynaa cududeena waa sii badanaysaa laakiin markastoo la kala dhantaalo oo dhinacana ay kugu hayso Ethiopia 120 milyan dhinaca kale tan ay 50 milyan oo Kenyana kugu hayaan adigana aad tahay 12 milyan ya waa garan kartaa marka qofka wax garadka oo kasta wuxuu ku fikirayaa adduunkana tiraalaas uu baan sheegay waa aragtaa hada China ya iyo India waay dhaqaalahooda iyo xoogooda saas ugu badan yahay because waa tiradooda tirabaan ma sheegto tirabaan ma sheegto marka inaan badnaanaan rabnaa dadkayna adiga intellectual dadka wax garadka oo xataa hadaysan siyaasi ahayn oo aniga kala aan kamid ahay yaa in ka soo marmar siyaasina aan noqdo hadaan rabo inaan badanaan rabnaa ya inaan yaraano marka sida waayo anaga waxa aan ugu dhaganahay wax kala ma ahay waa intaas teeda kaleeto Somaliland dadka joogay Somaliland nimada jecel waxa fiicnaan lahayd inay nagu qanciyaan waxa ay la baxsanayaan maxay haystaan hanti iyo deeq iyo wax walba iyo munaafacaad ya wax ugu badnaaya dalkii Soomaaliya isku dhihi jiray wax ugu badnaaya oo lahay koonfur yaalaan xaga wax badan ma yaalaan marka xataa haday nagu qanciyaan wax fiicanaan haysanaa waxaanaan haysanaa walaalayaal aanan ogoleen inaan nala cuntiine nadaay intaynaan aan qaadanay xataa waxbay ahaan lahayd marka cidi go ilaahayda laga go'aaba koonfurta heedana waa go'aya inay dhahaan koonfurta marka laga go'aya Soomaali waa laakiin maxay sal ku haysaa arrintaas ma dhaqankii Soomaalida sal ku haysaa nin qaday oo aan quraacanin oo haddana raba inuu taqaanaa wax kala zaid helo hadda Talyaaniga oo kale ka soo qaba Talyaaniga waa waqooyi iyo koonfur waa sideen oo kale laakiin sidayna cagsigeeda waayo ayaga waqooyiga dhaqaalaha leh koonfurta Seychelles iyo dhulkaasi waa dhulka aan hantida badan lahayn ayaana marka qolihii warshadaha iyo dhulkii lahaayo dhulkii waqooyiga oo dhan ayaana intii fikireenay waxay dhahan anaga waaba ka go'aynaaba koonfurtan maalin walba baahan oo dhibaatadan waa waaba ka go'aynaa marka haddana waa la siimido waa la shiray oo waxa la yiri mataqaanaa amaan ma sii haysanayno haddii kuwaas aan dhahno waa ka go'an waxna haysanin waxay cunayaan annagayna cunayaan annagayna soo aadayaan nasayna boobayaan dhacayaan dil iyo rabsho iyo amaanka xumaanayo
uusan amaanka u ximaanin marka walba sidooda aan saga hayno ya hadda anaga waqooyiga iyo koonfurta waqooyiga hanti yaraa dhaqaale yaraa mataqaanaa nacfi yar wax walba yar haddana iyagiyaa weli leh waan go-aynaa marka iyaga ma ahane waa afarta u koreeyo xukunka haysta oo beesada ku dul haysta ayaa dadkii ku majara habaabinaya mooyaane ya meesha waxa ma yaalaan marka ilaahay khayr hasiiyo Soomaalidu isku timaado way tira Somaliland walaalayaal go'a ma go'ayaan ma go'i karaan wali waa in processki la maraa waa in aftidii la qaadaa waa in meel kasta looga ololeeyaa gobolka uu ogolaadaa igad ogolaataa African Union ka ogolaadaa ka bacdi qaramada midoobay loo gudbo sida sharciga uu yahay go'itaanka marka ma siyaasad baa oo waxba lagu rabaa mise waa dhab ayaga go'itaankoodu dhab ma aha go'itaanka ay Somaliland sheegaan siyaasiyiintooda markaad fiiriso nin joogay hadda mar raba magaciisa inaan sheegay garoonka oo Hargeysa nin haystay ayaa waxaan ku yiri wariyaa ewel xamar uga shaqeey jiray national civil aviation ku joogi jiray ya markaasaan waxaan warhaade adiga inta iyo xamar yaa ku roonay ya xamar uga shaqeey wardi xamar baa nolol lahayd oo nolol wanaagsan lahayd oo ka wanaagsan ya marka waxaan marka ma goonistaga wararkan iska dhaaftid ma xamartaada iska shaqo tagtid hadii kala dadkan xataa ma kala shaqaysid in goonistaga ay rabshada naga dhaafaan oo Soomaaliya la isku wada noqdo markaas wardi anigu hadda agaasimo baan haya xamar daanta badweyn baan ku dhex dhacaya agaasimad sheegaysaa agaasimo waaxid xataa ma helayo badweyn baan ku dhex dhacaya marka xeelay luminayaan marka Soomaalidu isku haysata aan sinaane aan kala sarreeyna la isku haystaa walba waxu haystaa waxu rabaa waxaas ay haystaan rabaan si haystaan marka nasiib darradu wax way shacabkii ku marin habaabinayaan damacooda gaarka waxa tagtaa dhulka Soomaaliyeed dhan waa taqaanaa waxaad iga sheegaysaa hadda ka hor in maxaa la yiraahdaa qof kasta Soomaaliya ama Djibouti ha joogo ama Jigjiga ha joogo ama Gaarisa ha joogo oo waliba dawlado kale ah inuu ku taamayo inuu xamar ku noolaado xamarna yimaadaan marka dambe dhalinyaradu ku fakaraan inay jaamacad ka soo baxaan iyadoo wali xamar saan tahay dhalinyaradu ugu badan ay ka yimaadaan gobolada Soomaaliya badan waxa weeye horta xamar waxa Ilaahay uu gargaaro horta maskiin kaalmeesna way tahay xamar maskiin kaalmees waxaan wajeedaa way ka raqiisan tahay meelaha kale xamar moogtahay qofka $1 waa ku noolaan karaa maalintii adoo waliba quraac iyo qadiya casho cunayo waaya maalintii $1 xamar waa lagu noolaan karaa maqaayada qatar ha jira maqaayada qatar ha jira dhinacaas miskiin kaalmeeska way ka fiican tahay kow dhinaca kale ta midabta koor ma leh inta ka timid inta u socota iyaa taa cid kuma leh ya haddaad Soomaali tahay haddaad Soomaali tahay af Soomaali ku hadloo hayst ya hatta af goboleed haduu ka dhadhamaya hatta still muraad laga male marba hadaba la afka sayo la hadlaayo ya qofna kugu takoori mayso marka luqadaada ama qabiilkaada iyo qofna kugu takoori mayso kugula dirri mayso meelaha kala saas ma aha ya walaalkay wuxuu tagay bogta Hargeysa markaas markuu dukaan tago wax gada rabo war xagee ka timid aaladaha muqt markaas oo kalba meesha markuu hadlo war adigu xagee ka timid markaas war aniga xagee ka timid maxay igu jirteen oo aan kontrabaan ma ahay dalkiisi joogan war lahjadiisa waay hadalkii dareemaya laakiin say ku samaysata xadaaradaas xamar kaliya haddaad afgooyo iyo balcad tagto dhaqan ka duwanaad galaysaa dhaqan ka duwanaatay yaa taa lagu leeyahay laakiin walaa qabowya dhaqankaas wali waa qabowya markaad koonfur sii aado inkastoo xamar ka duwan yahay laakiin haddana wali waa qabowya sida kaas xagga waqooyiga oo kale iyo uma kulula kuleelka wuxuu ka bilowdaa moogtahay marka aad dhaafto hiiraan markaad kor u dhaafto oo kuleelka qabiilka bilowdaaba markiiba lagu qaban karaa waxa ka sokeeyo dhan hiiraan iyo waxa ka soo sokeeyo dhan qabiilka macna badan ma sameeyo oo dadka lagu lama dirro oo dadka lagu ma takooro oo dadka waxba lagu ma yeelo ya laakiin haddaad dhaafto hiiraan ya qabiilka macnaha sameeyo geesow yeelaha qabiilka marka sii fogaataba geesaha waa sii weynaahayaan marka dambe waxa u tagaysaa meesha ugu geesaha waa weynaa waa markuu Hargeysa tago ya aad marka Soomaalidu waa dad Soomaaliyeed meel walba joogaan qabiilkay rabaan ahaadaan haddana inay Soomaaliyiin waa is ogyihiin maxay ku wada noolaan laayihiin maxaa loo siyaasadeynayaa qabiilkii dhaqankii noloshii horta wax badan niyo moogtahay saboolnimada cudurrada badan ay leedahay kamid tahay dad isxagxaganaya dad isdirdiraya waxaas ay dad aragto ya baahi kama foga meeshaas
waad ogtahay marka dhaqaaluhu yar yahay xataa furiinka waa badaha nimankii naagaha isqaba xataa furiinkooda waa badana hadii hantida yar laakiin dhalmadan waa badanay marka waxa uu la jeedaa dad Soomaali wax kale iskuma haysee saboolnimo nafta u keenta dhaqaale yari ay isku mar walba ku dirirayaan marka kuwaas hadaan ku sheegay mas'uuliyiinta oo meeshaas jooga hadda waqooyigaasi jooga si ay waxa ay haystaan u sii haystaan ama u sii badsadaan ay ugu dhageeyeen waxa isleeyihiin haday badweyntaas ku dhacdo Soomaali weyn la yiraahdaa waxaan hadda haysata ma haysanaysid dadka Soomaaliland waa ogyihiin in la afduubay oo niman gooni goosada ay afduubeen shir weyn oo jiray ay gooni inta afduubeen yiraahdeen waa ka go'ina Soomaaliya ilaa hadda afduubka in lagu haysto waa loogahay taasna waxay keentay dad 30 sano 40 sano reer Soomaaliland oo Soomaaliland tagir maxaa yeelay fikradan ay ka soo horjeedaan gooni goosadka fikradan ay ka soo marka dadka xataa way ogyihiin inay xor ahayn laakiin waxaan lagu shubay siyaasiyiin ku shubtay siyaasiyiin ka shubi karta ma la heli karin siyaasiyiinta ka shubi lahayd wali waa nool yihiin qaarna waa soo bixi doonaan waxay rabaan waqti fiiri Soomaaliland saxaafada afka laga yiraahdaa waa xor la ka hal raadiyo jiro oo la yiraahdo raadiyo Hargeysa moqta Soomaalida waxay wax isku gaarsiiso waxa ugu horeeya waa raadiyo waa waxa cid kasta heli karto teleefankaaga niclaha ah $5 jooga xataa raadiyo la FM ad ka dhageysan kartaa laakiin inaad television hesho internet hesho telefoon smart hesho waa lacag badan cid kasta ma heli karto marka hadaad rabto Soomaali inaad war gaarsiisid waa inaad raadiyo isticmaashaa marka Hargeysa marka wixii wax wada kala gaarayo halkaas raadiyo waa marka raadiyo labaad ma jiro Allah u naxariista Maxamed Xaaji Ibrahim Ciyaal ayaan u tagaa waxaan ku leeyahay raadiyo ayaan rabnaa inaan inta ka sameeynaa ka waran adeega dataas marka sare maxaa dhacay raadiyo waa loo baahan yahay dadkan halkaada raadiyo Hargeysa kaliya ma hay raadiyo private xamar 30 raadiyo ku taalo waxna kama halaysnay inta maxay wax u halaabayaan markaas waraday annagu dadka reer koonfurka waa dad qabo dadkeenu sidaas ma aha dadkeenu waa dad aad u kulul oo walibana hadalka uu aad u damqiyo eraygaas aad u jeclaysta hadalka waqooyiga dadka jooga hadalka aad u damqiya meesha Soomaalida koonfurtan joogto hadalka uusan aad u danqininba asa afkiisa ka yiri maxay ugu jiray lahaayaan laakiin dhinaca kale waxaan raadaa waqooyiga dadku way hadlaan isma dilaan laakiin koonfurta waa la isdilaa hadalka yar gacanta horeysa dikri waxa la sankiru ka galay burki laakiin unaga markaan xanaaqna ciyoolina xanaaqaynin hada xanaaqna waa isdirirayna sax waay laakiin ayaka fiiri maxamed xaaji Ibrahim waxaan ku warnaa dhaniyo hadaan sameeyno no news radio dadka waxa isku dira ee danqiya waa wararka marka radio aan wararba sheegin oo maanta oo dhan madadaalo iyo arrimaha socialka iyo dhaqanka kaliya ka hadlo on hal mar soo hadal qaadaynin siyaasad iyo war no news radio hadaan sameeyna ka war markaas naga daa bahalka radio sidiisaba naga daa waad soo dhexgelinaysaa kan ay control-yaan ay rabaan waxa ka baxay ay ogyihiin rabaan fariimooda marsanayaan kaas bas ay rabaan waa marka aan sameynayno raadiyaha BBC da Hargeysa ku yaala ninki la soo sameeyay ninki la soo saxiixday anigu ahaa aniga Xaaji Ibrahim Ciyaal anaga soo sameeynay ninki ka soo ansixiyaaba aniga ahaa okay raadiyo Hargeysa dhexdeedan ka sameeynay marka dhulka uu raadiyo Hargeysa ku fadhiyo qayb kamida ayaan raadiyaas ku rakibnay FM ahaan BBC dhaxmaraysa marka FM oo waliba 24 hours away oo Englishki iyo Soomaaliga kulli soo galayaan xamar xataa waa ka sameeynay laakiin idaacadu riyaal ma ما إذاعة ريال ما هو إذاعة توس وإيمانوي سو بوشاوس حتى حمر مد بان كسمي مركز أفهم من اللي قايبين أيوة اللي جايين أيوة مركز كاس أو BBC ده أيوة أقول هذا مركز بحر ماشي أنا وسعد واحد إن هذا الكا مركز أنقول هداية إن لا فرض هذا دت كاسي وفي عينهم ودود الهايم وحد الهايم كركنا وسودي لها مركز because waxay arki lahaayeen dad badan oo ka hadla maxaan ku luminaynaa iyo maxaan ka faa'iideynaa labadaba marka laga hadlo dadku dabaal ma isbarbardhiga imaanaya doodahaas in ay furaan siyaasiyiinta hadda joogta Soomaaliland dadka inaan weligeed lagu sii wadin marin habaabinta la yiraahdo heblo aan aqoonsanaya heblaayana aqoonsanaysa iyo Taiwan oo ayada xataa dawlad ahayn
ayaana aqoonsanaysa iyo safaaradeedaan keenayna iyo waxda bal fiiri meesha lagu meereysanayo waxaan waxba ka soo bixin waayo ogyihiin laakiin beeso say ku dhici kartaa dadka Soomaali ugu aqliga badnaa ugu aqoonta badnaa lagu tilmaamaa ugu xadaarada fogaa siyaasiyiintaas ay afduuban yihiin siyaasiyiintaas keligoodna ma afduubne xataa gobolka ayaanan ogolayn annaga inaan inta midowna aan xoog yeelano marka kuwaasna xataa waa laaluushayaan hadda misalan Ethiopia oo kaleeto inaan dal oo labaad Soomaaliya marka xooggiisa inaan noqono ma rabto Kenya sidoo kale ma rabto ya marka kuwaas xataa waxaad moodaa inay incentive siinayaan si dalka uu status-kooda u ahaado dal xoog lahayn u ahaado marka iyaga ban midoobaynine sideeda ku haya marka waxaa motivate garaynaya waxaas kamid ah yaa Ethiopiankii Kenyaankii iyo daraskii oo aan aad u wada ogolayn dal xoog loo Soomaaliyeed oo soo baxa aan rabin wax aad loo isticmaala Xasan oo kelmadda nacaybka oo dadka Soomaaliyeed aad moodo in qofkii hadaad hadashaba ra'yigaaga isla markii la leeyahay waa in nacab yahay isla markii la leeyahay waa reer hebel qofkaas asaga nacaybka qabay ugu adiga nacaybka ma ahane qofka hadlay waxba ogide marka nacaybkan siyaasadda laga dhigay la leeyahay hadii la yiraahdo urniin waxan waa qalad reer hebel taa way nacab tahay hal wax xalin kara nin how Soomaalida iska oral society waa dad oo hadla leebo waa mugta marka waxyaabaha oo nacaybka waxaa la yiraahdaa theory of antagonization af ingiriisi saas lagu dhihi jiray ya waxa waaye qofka ama anaad tahay ama cadowgayga tahay meel dhexe ay diidaysaa fikradaas ya ama aniga ayaad tahay ama cadowgayga tahay war labada midna hadda ma rabo inaan naqdee inaan adiga ku noqdana ma rabo kumaba ihiye laakiin haddana kumaba necbiye ya meel dhexe miyaanay jirin oo saddexaad oo iska joogi karo oo nabada ya marka waa fakarka ku dhisa siisaba in qofka la yeesho ama la dilo waa antagonization aan yiraahdo waa in qofka the two extremes labada gees labada dacal in mid la geeyo waa marka fikirkaasi waxay dhihi jireen Soomaalida laba daran mid dooro ya carabtan waxay yiraahdaan akhafu darrayn ya marka laba daran mid dooro dadka waxay dhahan anaga dadkeena reer koonfurkeena waxaan dhahnaa adeegdiid waa loo labeeyaa qofka adeegdiidka markuu yahay saan yeel ama saan yeela liidaa ya marka meel saddexaad loo diidaa ma aragtaa war saan nama rabo si kale saddexaad aan keenaa aniga tala kale saddexaad aan keenaa hadii liidaa Ahmed Qanyara asagana Allah u naxariistay wuxuu yiri hadda koor Soomaalidu horta waxay yaqaaniin moogta faa'iido iyo khasaaro laakiin wuxuu yiri wax kale saddexaad jireen moogtiin waxaas waxaa la yiraahdaa hore lafaada hayso lafaada cayso خير خساره meel u dhaxaysa marka dadkan oo cadaawada ah oo nacaybkan hadda adigu aad soo hadal qaaday marka dhinac kale ka fiirsana nacayb runa ma aha waa nacayb superficial ah nacayb oo dusha sare waa nacayb runa ma aha waxaad garan kartaa marka la baxo meel la aado ya qofka Soomaaliya kugu soo horeeyo aad aragto ama Soomaaliland ha ka yimaad ama meesha raba ka yimaadee ya waa isku soo boodaysan niman Soomaaliyeed isku tihiin aawan nacaybka intuu aaday markii ugu horeysay shirarka lagu qaban jiray hadda goboladan ama markii ugu horeeyay oo Addis Ababa lagu qabtay kuwa kale tan qaar badan oo Kenya iyo meelahan kalba mar lagu qaban jiray iyo ilaa Djibouti kulli ilaa xataa Sanca dadka dirsanay ala wacay Soomaaliya si loo heshiisna ma jirin oo beenayay quick fix sameynay markay yimaadaan hab inta isasiyaana habeenkii iyo galbihiin shaah wada cabayaan subaxdana meesha shirka marka la isugu yimaado oo isdirraayaan waxa dunyada la arkay marka waxaad arkaysaa nacaybka xataa inuu yahay nacayb artificial ah marka faa'iido ku qabaan Soomaalidu inay nacabta faa'iido ku qabaan waa ka hadii kale ka heshiin lahaayeen waxaas Xasan Barees ugu dambeyn maxaa talaa dagaalaad ka soo warantay colaadihii Soomaalida dhexmaraya arkay qof Soomaaliya kale u dilay qabiil dartii diin dartii hadda u dilay u qarxinaya dadka Soomaalidu maxaan ku macnayn karnaa maxaad isleedahay xaaladda soo laga qaban karaa ninhow dagaal sokeeye dal soo mara anaga uguma horeyno ugumana dambayn doono taariikhda waxa loo bartaa waxaa la yiraahdaa yaanan ku soo celinayn khaladkii hadda kahor aan soo galnay dagaalka Soomaaliyeed dagaalka sokeeye ah waxaad moodaa kaliya inuu ka muddo dheeraaday kuwa hadda mesela Lebanon oo kale markaa soo fiiriso wuxuu ka mid yahay dagaalada sokeeye adduunka ugu dheeraayo la yaqaanay
وحيون أهاي لحي 8 سنة يا لحي 8 سنة soo jooga annaga waa laba jibaarnayba ya laakiin ayaga isu dilayeen ama dagaalada soqeeya adduunyada meelaha ay ka dhacaan misalan Burundi iyo Rwanda iyo dhulkaas fiiriba meelaha ay ka dhacaan si isu dilayeen annaga isuma dilno xamar baa ugu dagaalo badnaa ugu colaado badnaa ma xasuustaan maalin ay konton qof ku dhimatay ya haddana waxa la yaab leedahay xeerka Soomaalida oo ah caruurta iyo inaan la dilaynin inaan la dilin barnaamijyada caruurta iyo haweenka iyo inaan la dilaynin iyo dadka inayna kala tagaynin iyo inaan haddana xataa waa naas nacibna la dhahay aan la kala guurka la sidiidaynin iyo hadda Soomaaliland waa nacibna la say u dhahayaan waa u tagaynaa ana ka hor xamar waxaan leenahay war gabadhaan aan jeclaan gabadhaan aan rabnaa waana la siiha cajiib iyo waliba la sharfaayo ayaana la siinayaa Soomaali cajiib marka waxaad garanaysaa nacaybka xataa inuu artificial yahay nacaybku run ma aha marka nacaybku waa nacayb ay siyaasad iyo dad siyaasad ka shaqeeya inay siyaasad u shaqeynayaan u maleeyaan ya dad haddana nagu haysta dad haddana ka dhex raadinooyo aad u mahadsantahay xasan bariise ayuu ahaa oo barnaamijka ku wareysanaya daawadayaal inta ayuu ku dhan yahay intaynu mar kale kulmi doono waxaan leenahay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan aad u mahadsantahay abtiyo thank you very much mahadsanid abtiyo waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeenu waa kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid